Assalaamu calaykum. Ma ku aragtay ciddiyaha ilmahaaga ama carruurtaada calaamadahaas yaryar ee cadcad ama adiguba ciddiyahaaga ma ku aragtay calaamadahaasi cadcad? Calaamadahaasi ma aha kuwo markasta ciddiyahaaga ku yaala, hase ahaatee mararka qaar ayaa laga yaabaa inaad ilmahaaga ku aragto ama adigu isku aragto amaba aad ku aragto qof kale oo ciddiyihiisa barbar yaryar oo cadcad leh. Ma isweydiinaysaa maxaa keena ama maxay yihiin? Sida aynu ognahay, calaamad kasta oo jidhkeenna aynu ku aragno oo cusub islamarkaana aanu keenin nabar ku dhacay ama wax ku xanuunjiyey oo kale oo aad isku aragtay uun iyagiyoona wax xanuuna wadanin, waxa ay sheegayaan ama ka turjumayaan caafimaadkaaga, jidhkaaga hadba heerka uu ku sugan yahay ama waxa ku soo kordhay ama waxyaabaha ka maqan. Haddaba calaamadahan yaryar ee ciddiyaha ayaa waxa ay sheegayaan ama tilmaamayaan ama yihiinba signaal uu kuu soo dirayo jidhkaagu ama jidhka ilmahaagu, kaasoo tilmaamaya ama sheegaya in jidhka ay ka maqan yihiin faytamiino. Sida ay sheegeen culimada caafimaadku ayaa waxay sheegeen inay calaamadahaas iyo qaar badan oo kale oo jidhka lagu arko ay sheegaan in uu jidhkaaga ku yaryahay ama ka maqan yahay qaar ka mid ah faytamiinada. Faytamiinadaasi ayaan haddaba hadda kula wadaagaya haddii aanad hore u ogeyn. Faytamiinadaasi ay sheegayaan calaamadaha yaryar ee ciddiyaha ee cadcadaanka ah ee ka muuqda sida sawirkaasi iga sarreeya ayaa waxa ka mid ah ama ay ka turjumayaan inuu jidhkaaga ku yaryahay ama ka maqan yahay faytamiinka faytamiin B, faytamiinka faytamiin H, calciumka, ironta iyo weliba borotiinka. Haddaba haddii aad tahay qof isku arkay calaamadaha yaryar ciddiyihiisa, isweydiinaya ama garan la'aa xagga ay ka yimaadeen, amaba aad carruurtaada ku aragtay, ku dadaal in aad qaadato cuntooyinka ay ku jiraan faytamiinadaasi aynu imika idiin soo sheegay, kuwaasi oo kale ahaa faytamiin H, B, calcium iyo iron ama iron iyo borotiin. Waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan insha Allah. Calaamadaha kale ee aad aragtaan ila soo wadaaga si iyagana aynu isugu dayno in aynu ogaano waxyaabaha ay ka turjumayaan ama aan idinla wadaago waxyaabaha ay ka turjumayaan.